السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إن شاء الله مeel kastoo adduunka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga Ikran Beauty Famliy Vlogs maanta waxaan sameeyay rabaa cinnamon roll burka iyo sokorta iyo wax dhan waa isku dardaray waa ujeedi meesha ku qoran tahay ukuntina markii aan qasay kaamirada way go'day marka waa 3 koob bur ah 3 qaando sokor ah 1 qaando cusbo ah 1 xabo ukun ah 2 qaando oo batar ah mase subag saa u taqaano 1 qaando oo leebita ah 1 koob oo caano ah intaas isku qas 40 daqiiqo meel dhig intaas oo kale ay u baahan tahay maasha Allah sigaran macaan oo ku soo baxayo qurux ah sokorta korka aa ugu shubalayaan brown sugar waaye waa 1 koob oo sokor brown sugar iyo 2 qaando oo qarfe ah hel ma ahan yaa qarfaha waaye soo mid uu gaduudanaya bas waa fidiyay waa u jeedin korka waxaan ka barinayaa subag si uu jilaac u noqdo maasha Allah sokortana kadib korka ayaa ugu bilbilaya kadibna waa jarjare marka jarjaraysid waxa isticmaalaysaa dun hadii aad ku jarjartid mase midi afkeeda cusub bacdiye hadii kale midida kaleeto hilibka ay ka dhex galgalaysaa waxdan fool xumo ay ku soo baxaysaa insha Allah dunta ayaan fudud dunta saasay dhaqdhaq waa ku jarjara waa calaamadaysan marka horeeto intaas oo kale ay u baahan tahay sida ugu jarjaray maasha Allah ayuu ku soo baxay waa kana hal saac ayaa meel dhigaysaa sidoo soo fuuro dana 20 daqiiqo ofinka markaa galisay 20 daqiiqo bas ayaa sugaysaa bacaya korka ugu daboole asigana waxoogaa soo fuuraya hal saac meel dhig
kadib adigoo tartiib inaad dubato ayaa beel ah oo dahsaneen si uu qurux kugu noqdo. Meeshaan cream cheese ayaa noogu jiro. Waxaa u baahan tahay 1 qaando oo butter ah. baaquli ayaa ku qasi rabay, baaquliga ayaa wixii dhan iga dadaadiyay, marka baaquligiisa ayaa ku shubayaa iyo 1 koob oo icing sugar ah, 1 qaando oo vanilla ah, wax yariis oo cusbo oo been ah. Hadii cusbo been wax yariis farta kusoo qaadaysaa si oo macaanka uga badanin oo sokorta ay wax yar dhanaan u sameyso. Meeshana nadiif waaye, miis nadiif ah oo loogu talagalay wax inaa ku fidsado waaye, wuuna nadiifsan yahay. intaas ayaa isku qasaysaa bas 20 daqiiqo markii ovenka ay dubto diyaar ayuu ku noqonayaa. Korka ayaa ka marinaysaa. Maasha Allah siduu ku soo baxayo qurux miis dhehaysid bakii waaye. Marka haddii aad bilbilaw tahay maasha Allah siduu ku noqonayo waa yaabaysaa. Haddii aad follow aad dhahdid oo aad step kana u raacdid maasha Allah ayuu kugu soo baxayaa insha Allah. Videogan si fiican u dhameysii lahayd dhamaadka insha Allah.